haddii aad tahay small business ama aad tahay self-employed independent contractor waxay ku tahay good news maadaama shalay oo khamiis ahayd aqalka sare ee Mareykanka ay extension ku suubiyeen barnaamijkii caanka ah ee Paycheck Protection Program sidoo kale IRS ayaa arbacadii 37 milyan oo Mareykan siiyeen $1,400 aheyd stimulus check arta meel walba joogtaan waa salaamantihiin waa maxaan faarax oo marka la idin la wadaagi doono laba qodob oo muhiim ah fadlan haddii aad channelkayga aadana qorin maxaan faarax saaxiib ila noqo subscribe garee fikradaada ka dhiibo lana wadaag videogan asxaabtaada iyo ehelkaaga okay aqalka sare ee Mareykanka ayaa shalay khamiisa waxay extension ku suubiyeen barnaamijka Paycheck Protection Program oo loogu talagalay small businesska Mareykanka kuwaas oo la tacaalayo caabuqa coronavirus barnaamijkan awal Paycheck Protection Program wuxuu dhici lahaa March 31 laakiin waxaa lagu daray aadna waa loo dheereeyay May 31 ayaa laga dhigay so haddaad tahay small business ganacsi yar aad leedahay ama aad tahay qof kaligiis shaqaysto oo independent contractor self-employed Uber driver taxi driver truck driver looma baahna inaad business name leedahay ganacsi inaad leedahay looma baahna haddii aad 1099 qaadatid canshuurta markay xareysid ama 2019 ama 2020 ayaad ku xareysan kartaa grosskaaga lacagta ah taasoo loo qaybinayo 12 lagu dhufanayo 2.5 fadlan ka faa'iideysta barnaamijkan waxaa taalo 88 bilyan oo dollar ayaa taalo oo aanan wali la qaadan accountiga bangiga iska jirto waana sababta keentay aqalka hoose iyo aqalka sare Mareykanka in ay ansixiyaan looguna talagalay dadka adoo kala ah oo aadan ka faa'iideysanin inay ka faa'iideystaan hadda ogtihiin ba 284 bilyan oo dollar ayaa loogu talagalay small businesska waxa ilaa hadda so far la claim gareeyay oo la bixiyay ilaa March 21 196 bilyan oo dollar waxaa taalo 88 bilyan oo dollar oo qof qaata la leeyahay fadlan hadda tahay small business oo aad ku nooshahay Mareykan nawaa ama Mareykan gobol walba fadlan ka faa'iideyso barnaamijka ka buuxi bankigaaga ama haddii aad u baahan tahay meelaha laga buuxiyo tag dad Columbus joogtid waxaan xafiis ku leeyahay Banaadir Mall ana idinka caawinayo oo idin buuxinayo barnaamijka Paycheck Protection Program fadlan ka faa'iideysta lacag badan ayaa inta loo sugayso haddaad waxa lacagaha ugu badan la bixinayana waa 20,833 30,000 10,000 25,000 10,000 qofba grosskiisa wuxuu yahay ayaa loo qaybinayaa 2.5 grosskaas aan laga badin karin $100,000 waa line 7 ama line 1 mid ku yahay 100,000 kama badnaan karo haddii waxa lacagta ugu badan la helayana waa $20,000 so fadlan ka faa'iideysta mid kale rabina ka hadlo waxa waaye IRS ayaa sheegtay 37 milyan oo qof inay siiyeen lacagtii second stimulus check aheyd asbuuc ka hor waxay sheegeen in 90 milyan oo Mareykan ay siiyeen asbuucaana arbacadii waxay jeeg u jireen bankiga oo ku shubeen direct deposit 32 milyan oo Mareykan oo sidaan oo kale ah 17 milyan waxay ugu shubeen bankiga direct deposit 15 milyanna waxay u gooyeen check oo aan ka mid ahay maadaama tookadii hore aan helin 90 milyan oo dadkii hore aan ka mid ahayn 15 milyan oo jeeg loo jaray ayaan ka mid ahay waxaan booqday get my payment status IRS website-keeda ayaad ka fiirin kartaa macluumaadkaaga adoo gelinaya socialkaaga addresskaaga halkaas ka arkay in maanta Jimcaha March 26 liisoo mail gareeyay liisoo diray so waxaan rajeynayaa inay qaaran doonto ilaa 3 bari 3 business days ilaa 5 business days so adna halkaas iska fiiri haddaadan helin waa 15 milyan jeeg loo jaray sidoo kale waxay sheegeen 5 milyan oo Mareykan in prepaid debit card ugu jareen intaas waxaa ku dhan 32 milyan oo dollar every week walba arbaca walba ay bixiyaan waxaa sidoo kale la filayaa in 30 milyan oo Mareykan dadka qaato Social Security Administration dadka waaweyn ee qaato in ayagana la siin doono bangiga loogu shubi doono check loo jari doono sida ugu dhaqsida badan waa sida IRS sheegtay ilaa hadda waxay dhaheen third stimulus check-an waxaa qaatay 122 milyan oo Mareykan ah 90 milyan tookadii hore qaateen 37 milyan hadda ay qaateen wayna sii wadi doonaan ilaa December 31 2021
so haddaadan qaadan stimulus checkgaagii waxaa jirta meel laga fiiriyo irs.gov tag macluumaadkaaga geli get my payment status waa laakiin waxaa ugu talagaleen third stimulus checkan dadka buuxiyey canshuurta 2019 ama 2020 dadkaas kaliya ayaa buuxin karo haddaad canshuurtii buuxin 2019 ama 2020 oo kugu dambeysay 2017 fadlan canshuurta buuxi sidaad u heshid xaqaaga una claim gareysid ugu dambeyntii IRS waxay sheegtay in dadka mataqaana rifaanka ay u celinayaan sanadkan dad badan ka daaday ilaa 12 milyan oo qof sabab la xiriira in mataqaana taxadar dheeraad ah sinay cid lacag siinayaan iyo inay shaqaale ku fulan haysanin so haddii rifaanka uu ka daahay fadlan booqo irs.gov get my refund status geli information macluumaadkaaga hadduu weli processing ku dhahayo fadlan iska sug waqti ay qaadanaysaa usually waxay dhaheen IRS 21 maalin ka badan ma qaadan doonto balse laakiin waxaa la filayaa dad badan oo waxaa arkay oo ilaa bil aan qaadan so halkaas kala soco macluumaadkiina anigoo maxaan faarax wixii ku soo kordho waa idin la socodsiin doonaa waxaan idinkaga tagayaa ha idin wacnaato maalin